kulanti wanaagsan idin lahaantiin baa daawadayaal meel kastoo aad dunida kaga sugantiin iyo xilli walba ay idin tahayba waxaan soo gaadhnay hadii aanu idin soo tabin jirnay barnaamijkeena dhalinyarada barnaamijka dhalinyarada ayaa si toddobaadle ah uga baxa telefishinka Shakaal maanta barnaamijka waxa inoogu marti ah abwaan daayar isla markaana ah qora sidoo kale ah bara jaamacadeed Tawakkal Cabdi Ismaaciil waxa uu ku dhashay deegaanka Harawa ee gobolka Faafan waxa waxbarashadiisii sare hoose iyo waliba tii dhexe uu ku qaatay isla deegaanka uu ku dhashay Harawa waxa uu jaamacadda Jigjiga University ka qaatay digriga darajada koobaad macadka daraasaadka afka Soomaaliga iyo waliba suugaanta waxa uu sidoo kale ka noqday isla macadkaasi bara jaamacadeed waxa uu sidoo kale ka qaatay shahaadada master isla jaamacadda Jigjiga abwaanka ayaa sidoo kale waxa uu qoray buugaag dhowr ah iyo waliba daraasaado aad u fara badan buugaagta uu qoray ayaa waxa kamid ah buuga lagu magacaabo dheefta suugaanta iyo waliba buuga tababare ee xaaladaha halabuurka abwaanka ayaa sidoo kale waxa uu sameeyay daraasaad dhowr ah oo ka sameeyay saameynta uu qaadku ku leeyahay burburka qoyska iyo waliba cilmi baadhis uu ka sameeyay doorka suugaantu ay ku leedahay khilaafaadka waa tahay ku soo dhawow abwaan shaashada telefishinka Shakaal iyo waliba barnaamijka dhalinyarada maasanid walaal Cabdiraxmaan aad baan u dhawahay dhamaan waan salaamaya bahda Shakaal TV sidoo kale farsamayaqaanada iyo dhamaan bulshada weynteena daawanaysa saas sheegtay waxaan ahay Tawakkal Cabdi baraha jaamacadda Jigjiga ka tirsan aad baan ugu dhawahay barnaamijkan dhalinyarada ee ka baxa TV-ga aan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ka soo muuqdo shaashada aad baan kugu soo dhaweynaynaa mar labaadna waan ku mahad celinaynaa sida aad uga soo qayb qaadatay aad uga soo jawaabtay casuumaadii barnaamijka iyo waliba studio telefishinka Shakaal ay ku fidisay waxa tahay Tawakkal wiil dhalinyaro isla markaana kamid ah hal abuurka da'da yar ee deegaanka Soomaalida marka isla markaana wax qora bal anaga iyo dadweynaha waxaad sharaxaad kooban naga siisaa saameynta suugaanta Soomaalida ee maanta waxa lagu tilmaami karo aad baa u mahadsan tahay kulley dhinacaygu halabuurkaygu anoo dee labada dhinacba ka tirsan laakiin wuxuu u badan yahay dhinaca qoraalka ayaan badanaa waqtigayga intoo badan xaggaasan geliyaa suugaantan waxyaabo badan oo dhowraan ka qoray adoo buugaag ilaa 3 gaadhiya iyo daraasaadyo dhowra daraasaadkii u horeeyay ee sameeyay saad sheegtay wuxuu adigu su'aashaadaas aad la xiriiray wuxuu ahaa isbedelada ku yimid qiimaha suugaanta iyo suugaanyahanka suugaanyahanka suugaanta sameeya iyo suugaanta laftirkeegii bal hoos u dhacan ku yimid meelaha cunsurada sababay ayaan baariyay inta kadib waxa ay soo baxay qodobo dhowr ah buugga u horeeyay aan qoray dheefta suugaanta laga hadlayo qodobadii baa waxa kamid ahaa qodobka koowaad wuxuu ahaa in aanan bulshada badankeedu ay fahansaneen suugaanta iyo qiimaheeda ama waxay goyso ama doorka ay ummad ahaan ay noogu jirto si fiican kadib buugga waxaan u qoray xal ahaan waxaan u bixiyay dheefta suugaanta maana ducaha ay gasho ama meelaha ay wax inooga tartay wax ka qabato sax baan ku soo ururinay si kooban oo uga hadlaya kulli ilaa 8 cutub iyo ka hadlayay mid walba wuxuu taabanayay door nololeed ay suugaantu ku leedahay bulshada oo ay waxtar ugu leedahay sax saasana magaca kooban ee dheefta suugaanta ugu bixiyay marka buuggaasi si guud ahaaneed qodobada uu ka hadlayay hal iyo laba maxay ahaayeen kulli buugga 8 cutub buu ka ayuu ka hadlayay wuxuuna sidoo kale jawaab u ahaa adoo daraasaadka aan sameynay qodob kamid ah oo qiimaha suugaanta in la fahmo marka koowaad suugaanta iyo adeegsiga bulshadu tii hore soo adeegsan jirtay iyo timeka soo adeegsato doorka ay ku leedahay kaydinta dhacdooyinka iyo taariikhda ay ku jirto suugaantu qayb kamid ah bay ahayd sidoo kale xakameynta habdhaqanka bulshada wixii ku caada dhaafay ama dhaqanka aan ku habboonayn ku soo kordha sida suugaanyahanada bulshada ay uga jiraan qayb kamid ah waxa waxa kale kamid ah barbaarinta ubadka iyo ama garaadkooga ahaado ama afkooga ahaato doorka suugaantu ay ku lahayd baa kamid aha waxa kamid ah ilaalinta jiritaanka afka aynu leenahay iyo doorka suugaantu ugu jirto sax waxa kamid ah sidoo kale kor u qaadista hanka qofka ama shakhsiyadda
iyo doorka dhiirigelineeda ay suugaanta ay ku leedahay baa ka mid ahaa. Qodobada dambeeya waxaa ka mid ahaa xalinta khilaafaadka iyo suugaanta siday ay uga qayb qaadato in la xaliyo ama kaalinta ay ku leedahay suugaantu xallin ahaan kulle inahaa socotoba ballaadhana iyo sidoo kale maaragtaanay guurka waa nidaam halbeegka qofka su'aalahan qofka guurdoonka ahi wuxuu u baahan yahay talooyin iyo tilmaan iyo qaab ku reer u iskuman lahay oo kale door badan bay markaas suugaanyahanadu ay ku leeyihiin oo ay talooyin badan bay kusoo gudbinayaan oo leeyihiin qaabka waada loo guursadaa saasaa reerka loo dhaqdaa marka kaalinta ay ku leedahay habraaca guurka suugaanta ay ku leedahayna cutub ka mida u ahaa inahaasuus kolley ka hadlayay maasha allah markaad eegto xilligan la joogo dhalinyarta wax qorta sidaadoo kale maanta wax qorta iyo weliba dhalinyartii hore ee wax qori jirtay ma isleedahay waxay haystaan fursado ma jiraan ay haystaan kuwa maanta wax qora oo kuwii shalay wax qori jiray hal abuurka lahaa aanay haysan way jiraan fursado badan waxyaabo badan ay u baahan yihiinna way jiraan kolley qofka hadda iminka wax qorayay dib marka koowaadee dunidu marka teknolojiyad ahaan la helo qalabkii hore ka fudud teeb ahaan jiray hadduu ahaan jirayba ka fudud oo kana jaban buu ayuu qofku helaya oo wax ku qoran karo xitaa mobilkana dhaho qofkii inuun ay ku jirto waa qof macnaha wax ururin kara wax qori kara dhinaca nidaam ahaanna kolley dee qofku wuxuu dareemaya marka labadii system ee hore la isbarbar dhigo kale inuu qofku afkaarihiisa inuu qoro oo xor u yahay sax inkastayna badanaa dadka aynan waxa buugta ku jira aad ba loo akhrin xitaa haddii ay wax yihiin oo dadkeena akhriska ku yaryahay haddana xorriyad hadda wuxuu qofku u helayaa inuu wixii afkaartiisa uu qorayo inuu siduu rabo uga bogto marka loo eego system ahaan waa fursad macnaha aan hadda ka hor jirin oo qofku hadda u haysto oo qofkii imika wax qorayay sidoo kale inay bulshadu hadda soo yar baraarugayso wax qoraalka ugu soo badanayo ama wax akhriska ugu soo badanayo taana ay qofka dhiirigelin ku keenayso markaa buugaaga waxaa gaaleer akhrisan aad aragtay in aadna u sii badiso ummadii oo kale fursad bay dhinac ay ka abuuraysaa kulli laakiin waxyaabo badanoo dhinaca kaabida oo ay u baahnaayeen way jirtay oo ka maqan dhalinyarada waxaad kaloo niw iga warantaa baltayada waxyaabaha la soo saarayo tusaale ahaan erayada la qorayo iyo weliba erayada maadar dadka suugaanyahankii ay dadka u tabinayaan marka waqti xaadirkan la eego farqi miyuu u dhexeeyaa wixii dadkii hore ay tabin jireen suugaan ahaan dadku ay tabin jireen horta kolley suugaanyahan marka la dhahdo suugaanyahanka caadiga aan waxaan aaminsanahay hadduu qofku suugaanyahan caadiga kii loogu talagalay ama abwaan in la yidhaahdo ama dee suugaanyahan lagu tilmaamo qofka haddii uu ahaa markaynu imika eegno kii hore haddaynu eegno ka dambe haddaynu eegnaba waa nin walba xilligiisa unbuu la jaan qaadaya oo suugaan ahaan iyo midh ahaan iyo nuxur ahaan waxay gudbinayaani waa aad bay isugu dhow yihiin ama ay u siman yihiinba laakiin waxaa jira qaybo badan oo magac bi'isa oo iyagoo aanan suugaanyahan ahayn intay suugaanyahan qaateen bulshadiina dee abwaan la leeyahay ama hal abuurle ama suugaan la leeyahay kaasaa marka waxa uu keeni karaa oo dee xilliyadii hore aada ugu yaraa in nin aanan aqoonteeda ama xirfadeeda ama hibadeeda aan lahayn uu ku suntanaado maynan jiraynin marka qof aanan wuxuu abuurayaaba ay jirin oo dee af soomaali caadiya unsa samaynaya isku toosinaya in la yidhaahdo suugaanyahan ama abwaan la yidhaahdo taasina ay keenayso hoosu dhac weyn oo suugaanyahannimadii ah marka waxa uu sheegayay dee marka kii hore iyo ka kale caadiga noolba laba bardhigaba wax aada u liita weeyaan taana inta badan waa cillad ka imatay xagga bulshada oo qofkii bulshadiiba fahanka suugaanta ay ka haystaanba yaa hoos u dhacay kadib qof kasta laba hal oo soomaali ah isku toosiya waxaa la odhanayaa abwaan ama suugaanyahan kaasaa markaasuu sii wadayaa wixiisii taasina waxay keenaysaa hoos u dhac wax dee aanan xirfadiisii ahayn buu dhex jiraa marka qaabkaas inay sumcad darra ay ku keento mooyaane si beri baa waxaad gabay aan tiriyeyba waxaa ka mid ahaa oon lahaa sumcad xumada heesaha watiya sabiga qaylyaya soof daran haboogan in la baday magaca suugaanta sogob iyo haacoon noo kacaa sababay naanayse afka iyo murtida waa sidii loo ogaasaban anaa sidii berigii hore ahaan jirin bay yihiin laakiin in uunbaa wax xumaynaysa aanan bahdi ahayn oo isaga jirta haddana kuwaasaa qaribaya marka kolley suugaanahan marka la eego way aad bay u fiican yihiin dadka dee hibadeeda lihi laakiin inta badan baa yaa iskaga dhex jirta in badanoo la jaan qaadayso magaca abwaane la wadaag magacana bulshadu saartay okay kuwaasaa qarib abwaan xays
waxa igu maqalaa yani waxa igu ogaal ah oo aan ogahay inaad samaysay suugaan aad u fara badan hadday noqoto bugaagaad qortay maad aragtay iyo weliba waxyaabo kale oo daraasaad oo aad samaysay yahow markii ugu horeysay taariikhdaada markii ugu horeysay istiraadaan iyo waxbaad curin kartaa oo yani waxbaad samayn kartaayo goorma ayay ahayd malaynayaa waxda imka la sheegi karo 16 inay ahayd si fiican markaan jaamacadda soo galay sanadkii 2016 si fiican horteed 2023 meelaha meerisay yaroo kooban oo wax yaroo tirtiriyay baa jiro waxaas markaa inuu gabay yahay iyo inuu geeraar yahay iyo anoona kala garanayn waxa uu yahay xilli dambe oo ay u dhaxaysay 3 sano oo kale kadib sax baan maalin arkay wixii meel ku qoran kadib markaasaan dib u eebiyey oo gabay laakiin gabay wax suugaan ahaan u eg waxa ugu horeysay 18 badanaana ma duuduubo suugaanta oo mararka qaar wax markay aniga ay soo cabudhan ku yar nafisa mooyaane ma intaan suugaanteeda meelaha bandhigay iyo wax u qabtay ama si gaar ah u duuduubo yaryihiin waxa laga yaabaa markaan gabay dheer tiriyo inaan 3 ama 5 yar oo miiriso kamid ah khadka ku soo qoran laakiin gabayga markaan tiriyaan nafiso bis si fiican saas waa iskiisiga niyow waxa la yiraahdaa dadka magartay hibada leh hal abuur kale marka ugu horeysay hadlayaan waxba ka hadlayaan marka ugu horeysay iskama hadlaan marka wixii ugu horeysay ka maansootay istiri maanta bal waxa ku tijaabiyo adiga ka sa hadalkaaga imka igu sheegtay waxa kamid ah inaad ay waxaan kugu soo magartay kugu soo abuurmaan markaad wax ad qoraysa ama dhahaysid marka wixii ugu horeeyay ka maansooto bal maxaad ka xasuusataa hal iyo labo kulley waxyaabaan ka hadlinto hibada qofka kale wax isaa ku abuuran laakiin waxan ba muhiim xilliga ogaanaya inuu hibadan u leeyahay xilli muu oo isogaanaya oo dhan waxaan samayn karo sax su'aalahan waxaan hadda eriyadeedii saxdii aan xasuusanin waxa jirtay Facebook barigii hore meelaha 15 meelahaas oo kala bay jiro hoyga suugaantii wax saasaba niman ba suugaan bay isku celcelinayeen si fiican waxoogay markaan gelin saa u akhriyay wixii lahaayeen baan isticmaalay nimanka madla hadashido halkaasaan ana meerisay ku qorqoray si fiican inahaas marka kadib deynay wax suugaan ahaan ay tirinayaan un baan u fahmayay waxana marka waxay dareemaysaa ka iyo wixii ka horeeyay sameeyay inay naf ahaan inay naftu ay igu dhex jireen waxaan ha yaali kuwa abuurnaayeen suugayna waxaan samayn karo si fiican ama aanan ogaanin wax kale ku dareemaysaa waxaan badanaa aad u jeclaan jiray suugaanta aad oo dhageysigeeda timaada iyo gabayo badan oo aan dhageysan jiray oo markaa suugaanyahanadaan dhageysan jiray markaan dhageysto kadib waan xifdin jiray marka qofku badanaa hadduu suugaanta xifdin karo markuu dhageysto waxay u badan tahay inuu hiba u leeyahay kadib xilliga waxa uu tirinayaa waxay noqonaysaa xilli ama ogaalkiisu xilliga uu soo kordho ama xilliga uu is ogaado inuu isagu wax urin karo bay si guud noqonaysaa si fiican laakiin hadda kuwii aan soran karo kuwaas ugu horeeyay ama ku khad dhaxdiisa ama ku aada saa uma garanayo laakiin way jiraan gabayo ka maansotay wax gaar ah ka maansooday wax gaar ah oo yani si fiican موضوع waxa kale jiray bariga aan jaamacadda 16 kan ku sheegay kulli gabayro xilliga dhalinyaradnimadana way iska haayeen si fiican waxa jiray su'aale gabadhan xilaasawa lahayn oo hadal yar oo naga dhaxeeyay ba xilli aduu seen u wadnay iyaga wax u socon labaan sarkay ama qof markaad muddo wada socotaan ayaga qofkeen aad uga kadib deestrado kan mustaqbal ahaan qofkan ka dhigo ha markuu jacaylku iska bilbilow yahayna waa iska dhibadan yahay aad weyn waa waxay marna xanuun ku soo maray marna yani macaan kadib waxa dhacday habeenka marka koowaad ee aan gabay caadi ah aan tiriyay barigaas ahaydo aduu waqtiyada kamid ah sidii maaragtaanay aan wax u rabay iyadoo u soconin baan arkay ana gabadha xageedii aan ka dareemay inay ay ku yar jirto laba-labayn oo kale si fiican waa kala dhaca oo aan daacad waxaan ka hayn macnaa waxaan leenahay oo dhan daacad ka hayn ballan furiyo badan kadib marka habeen baan adoo kamid ah habeen oo ballan fur u dhacay markaan soo noqday guriga yimiday baa si guud arintii say u dhacday waxaan oo yar qariibsanayo gamayla baan warqad iyo soo qaatay markaasaan qoray gabay kadib baad maansotay markaasaan gabay baan tiriyay kulli gabadhiina xagga oo ka salaamay in arrinta laga yaabo gabadha magaca baan u wala baxayo ugbaad baa oran jiray ugbaad baad ma sha Allah gabayga markaa waxaan la ka tiriyay gabayaan magaceedii ku soo hal qabsaday marka gabayga ereyadiisii maxaa ka waxaan idhi ugbaad maalintan ku wala baxay xaajada uguba
unugyada wadnaha saacadan amarka siinayay sinay inaad aayatiin tahay markaan u ololeynayay hubsiimuhu aliilka ayuu ila gudboonaaye gudbanaye u bixii aan beereenku yidhi eesha ka ilaali inuu oonka maanta u dhinta soo ibtila maaha dhinacaayo macnaha inuu ka qalala geedkii meersidii marka u horreeyey gabaygaasay ka mid ahaayeen gabaygaa jacaylkay ka mid ahay gabadha si fiican intaa wixii ka dambeeyey way gabayo badan baa kasoo dababaxay oo dee aan tiriyaha macnaa sax weyn oo marxalado badan oo kala duwan aad ka maasooto marxalado badan oo kala duwan si fiican marka marniyow marxaladaha marka laga maasoonaya kuwa markaa abwaanka yacni ku dhacaba mise waa kuwa bulshada markaa ka matalaya may badanaa waxyaabaha ay suganyahanadu ka maasoonayaan wax iyaga khuseeya ma aha badanka intooda badan ama sidaan aaminsanayo gabayada marka la eego 90% wax aniga la khusay igu khusay oo yiri ma si fiican wax laakiin bulshada ama xaaladaha ka jira ama wax uu qofka arkay ama shay uu dareensan yahay in muddo ku soo noqonaysa sax oo mar ka gami waayo arrintan adoo ka hadla umana oo siraado baa badanaa ku keeno oo waxay la xiriiraan nolosha bulshada ee kala duwan dhinacyada badan taabanaysa marka wax inta badan isaga ku la wada xiriira ma noqdon boqolkiiba sagaashan ma way kala duwan yihiin oo bulshada la wada xiriiraan badankeeda waxaa jirtay abwaan xays cilmi baarisaad ka samaysay isbedelka ku yimid suugaanta iyo suugaanyahanka bal annaga iyo daawadayaasha waxaad noo ifisaa bal ma jira isbedel muuqdo oo la taaban karo maanta ku yimid suugaanyahankii maanta iyo weliba suugaantii wax la taaban karo kuu kalifay inaad cilmi baaristan ka samayso aad ma jira aad waxaad jirta kulley qiimaha suugaanta iyo suugaanyahanku ay lahaayeen Soomaaliya markaad dib u eegto xeerka qiimaha uu lahaa iyo qiimaha maanta uu leeyahay aad bay kala duwan yihiin markaan baariso ahaan suugaanyahanka ninka suugaanyahanka ahi wuxuu ahaa qof maaragtaanay aad loo xishmeeyo oo la karaameeyo oo la yaqaano oo bartiisa taagan halkiisana ku ikraamaysan waxa la sheegaa xitaa sida gabayada in badan ku dhex jirta nimanka gabyaaga ahi marka ay ama marxalad ka gabyaan ama xaalad xalliyaan ama mawduuc laga hadlay marka uu gabay ka tiriyo ama xaaladda in gabayga uu tiriyo kaliya hal lagu siin jiray aad u weyn oo kaabwaanin badan wuxuu yiri waan Ismaaciil Miro oo kale mar hadlayay gabay dheer uu soo waday ay qaarna ka codsadeen noo tiriyaahdeen ayuu yiri gabaygi waa aniga tiriye wuxuu yiri idinkuna hashii gabay lahaa golaha soo jooja oo wacadka qaar lama gogtee gacalaysiya waana inuu gabaygu oo halleeya oo macnaha qiimaha lahaa soo abwaan afshir bacad isagoo tilmaamaya wuxuu leeyahay waxay odaya goob kaga hadlaan gabaygu Soomaa gamaan faras wixii looga degay gabaygu Soomaa kaftan tartan waxaan heesu la gelin gabaygu Soomaa wuxuu leeyahay wixii geela lagu qaybsan jiray gabaygu Soomaa macnaha inuu xitaa markan lalahan wuxuu goynayay laakiin hadda wuxuu gooyay iska dhaafay in la fahmo aad ayaa hoosu dhacaya waxa macnaha darasaadka ku jira waxa kamid ah inuu si guud wixii uu goynayo oo kale hoosu dhacay marka xiga in fahankiisa hoos dhacay bulshada aynan fahmaynin ba waxa uu yahay oo in sidoo kale marka labaad suugaanyahankii mirahan iska lahaa in uu maaragtaanay isagu oo ka hoos maro ama ka dambeeyo mikrofoonkiisa ku tilmaamay fanaaniinta fanaanku inta badankoodu waa mikrofoon ana wax la sameeyo la soo hanaaniyay bay qaadaan ninkii waxa sameeyay lama yaqaan laakiin dabcan waa ninkii sameeyay nin de isagu macalimihiisa la safuula meesha la yimaamo mooyaane badana inta badan kuwa xagga dambe joogay sameeya jikada ku jira lama yaqaan marka inuu hoos dhac ku yimiday qofka iyo suugaanta laftirkeegaba way kulli darasaadkaas website indheer garad leeyahay baan ku taabacay sax xilli dambe marka uu ku jiraan qodobadii hoos dhac in fahanka bulshada oo yaraaday in qiimahaas sidoo kale waxa tala dareemayaa si guud bulshada marka laga tirada suugaanyahanada hoos dhac inuu ku yiri taasna waxa keenaya caqabadaha haysta marka loo eego kuwii hore xilligii hore wada suugaanyahanka dadka u badnaa cid marka qofku cid fahmaysa waayo waxaan wuxuu goynayna waayo sababtu si raadi ama isugu si mashquuliya yaraanaysaba marka in dad badan suugaanyahan ay hadana suugaanyahan bahdooda ka baxaan dib u dhigta hoos u dhaca ka yimaadaan way taas talafriga waxa qodobo dhowr ah kulli ku jiray oo darasaadka uu soo saaray waxana buugaasa kamid ahaa in la fahmo bal qiimaheeda halka aan qoray
ka labaad kale oo la yidhaahdo sawrac oo weli aan daabicin laakiin bugaasun ku xigay wuxuu isna ka hadlayay hoos u dhaca fahamka bulshada ku yimiday suugaanta sidii ku fahmi lahayn luqadda suugaanyahanku ku gabiyo waxay tahay in aan bulshada u soo bandhigo qofkii xitaa raba inuu gabiyo hadduu kaa si fiican u fahmo inuu wax badan inuu ku abuuran tahay dabcan waxaa jira dad badan oo ku jirta laakiin wadaduna ka lunsantahay wadadii ay ka lunsantahay marka kuwa farsamadii iyo afkii iyo wadadii suugaanyahanku u lahaa bay ayaa ku xusan buugga insha allah waxaa dhawaan sanadkan cusubna oo rajeynaya haddii inaad soo saartay sanadkan insha allah taala waxaa kaloo jirta cilmi baadhis kaloo waxaa jirta samaysood ka samaysay saameynta uu qaadku ku leeyahay burburka qoyska taa iyada ma la shirtagtay oo weliba dad badan oo waxaa jira ay xaaladaasi qabsatay baa jirta marka waxaad noo sheegtaa bal waxa kugu kalifay sidan oo kale si haddaad noogu sharaxday oo kale iyo weliba meel aad kula wadaagteen bulshada ma jirtaa horta taas iyadu waxay si guutan cilmi baadhisadan sanadlaha ee jaamacadda ay bixiso oo si sanadlaha aan jaamacadda uga qaadanay annagoo tiima aanunbaa hogaamiye u ahaa laakiin kooxa marka waxay ka hadlaysay saameynta qaadku ku leeyahay burburka qoyska kulley locationno gaara oo meel gaaran dooranay bay ka hadlaysaayoo aan comparative ku sameynaynay marka in dhaqaale ahaan saameynta uu ku leeyahay iyo qof ahaan ama caafimaad ahaan iyo dabeecad ahaanba saameynta uu ku leeyahay marka labadaa la eego intaa kadib faktarada ugu badan ee khilaafka uu ka iman karo qoyska qofka hadduu dhaqaale ahaan uu caqabad ka haysato caafimaad ahaanna ay caqabadi ka haysato dee qofka la nool badanaa way imanaysaa in macnaha khilaafkii u yimaado marka dadkan wax daraasaadka weli maanaan soo kulli waan dhammaynay oo iyadoo aan xiraynay way jirta jaamacadda aan dhammaystirnay laakiin fagaaro si guud bulshada lamanaan soo wadaagino wixii ka soo baxay waa cilmi baadhis ballaaran kolley oo aada u badan hadda halkan aynan kaga goyn laakiin si guud waxun bay soo saartay inuu saameyn xoogan ku leeyahay qaadku burburka qoyska ama qoysaska muslimiinta ee burburaya gaar ahaan kuweynaa soomaalida inuu saameyn badan ku leeyahay faktarada abuuraya khilaafkana uu ka yahay kow ayaanu markaa kusoo ku cadeynay daraasaad aad baad u mahadsan tahay abwaan xays waxaan kusii dhownahay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena dhalinyarada bal waxaad hal iyo labo waxaa jirtay buug kale aad qortay baa jirtay oo aad ka diyaarisay fasalka tobnaad aad u diyaarisay marka buugga fasalka tobnaad aad u diyaarisay ma shakhsiyan adiga ayaa diyaariyay mise tiim baad ku shaqayseen sida kale geesta kale yacni ma jira wasaaradda waxbarashada oo kale inaad la wadaagteen kaas kulley waxa weeyaan si guud buuggaas yacni qoro un baan ka ahaa waa kan manhajka deegaanka ee caadiga ee la barto iskoolada lagu barto marka kulle tiimkii jaamacadda iyo keymiya macadka manhajka deegaanka qorayay un baan ka mid ahaa buuggaana shaqsigii kusoo hagaagay baan ahaa tobnaadka kulle syllabus ama muqarar dejisan oo wasaaradda waxbarashada ay leedahay baan ku shaqaynaynay waxaanu gelinaynaa wuxuu ahaa wixii gashi ah ee luuqadeed ee mawduucyadan la xiriira afkeennii ah baanu anagu curunayno gelinaynay laakiin kolley foormada la raacayo tii waxay ahayd manhajka deegaanka lagu saleynayay kolley buuggaasina waxa weeyaan waa kan deegaanka hadda manhajka cusub ee la bartay iminka sanadkii dhaweyta kuwii la baahiyey ka mida weeyaan marka si gaar ahaan aniga maahayn waa kii wasaaradda oonan qaybunka ahaa qoristiisa waxaa jirta sugaanta aad bay u ballaaran tahay way kala duwan tahay ma jiraan khilaafaad lagu xaliyo daraasadadaad soo saartay bay ku jirtaa baan malayn khilaafaadka ma lagu xallin karaa sugaanta hadday tahay shakhsi iyo hadday tahay jama si guud mee kulley daraasaad badan baanu ka saabinay doorkay ku leedahay sugaantu xalinta khilaafaadka ama qof ahaado ama qoom ahaado ama bulshaba ahaadaane waxaana jira dee khilaafiyo badan oo hore loogu soo xaliyey oo gabayadoodii qaar imka la hayo kulley sugaantu keliya gabayga un maahayn markaanu darasada ku jirnay dee bay qaybo badan tahay mahmahayahan iyo xigmadahan iyo qaybahan la adeegsanaya badana ama guurteedan fadhiday waxaan adeegsanaysay ku hadlaysa marka ay garta soo dhaweynaysaba waa wada suugaan weeyaan marka khilaafaadyo badanoo ay xaliyeen way jireen oo tusaale sida gabaygii allah naxariistay salaan carabay garaarkii talow colka jooja ahaa inuu laba qabiilo laba jilo oo istagaalaya intuu dhex yimi uu gabay ka tiriyey marka dhacdooyinkaasi ma kuwa kooban ma dhacdooyin badan oo saas sugan yahanadu intay iyagu tageen ay gabaya ka tiriyeen labadii dhinac ay ku maslaxeen way jiraan
dhinaca kalena dee way kicin kartaa marka qaar oo markuu duu sugaan oo abwaanku u adeegsado dhinaca qaldan oo yidhaahdo kacatulaahi reebel oo ku kaca wax kicin karta laakiin maslaxadana qayb weyn bay ka tahay oo way ku jiraan maaragtay cilmi baarista aan ku qornayna dadka waan weydiinaynay macnaha bal wax qiso hore loogu soo xaliyay inay jirto sida imka taa saran carabi oo kale iyo dhacdooyin badan oo aan caan ahayn laakiin oo sugaan ahaan lagu xaliyay way jiraan marka sugaanta door weyn bay ku leedahay xagga waayo bulshadan lala hadlayo ama ciidan iskhilaafsan afkeedii weeyaan oo waa cid afkeedii fahmaysa la hadlaysa marka way fududaanaysaa in meel dhow la isugu yimaado marka qofka afkiisa kula hadasho ama luqadda uu fahmayo marka lagula hadlo marka luqadda uu fahmayo waxaan ka wadaa yacnaha bulshada Soomaaliyeed haddii sugaan lagula hadlay waa waxay dhaqab iyo isru lahayn iyo dhaqan ay u lahaayeen marka ninka suugaanyahanka wuxuu og yahay wixii dhacday ee hore iyo tu dambaba isagoo afkeedii xaaladeeda isku xidhay ayuu si yar macquul kula hadli karaa oo ku fahansiinaya marka way door ku leedahay khilaafaadka ugu dambeyn si gaar ah qof ahaanna dee way ku leedahay niman badan oo waxa jira xaafadooda suugaanka wata ama caafiya amaan kaliyaad marka shakhsiyaadna hadii su'aal laba qof oo lamaana isku cadaysan oo kale haduu amaan fiican tiriyo laga yaabaa inay hal dhow oo ka yimaado marka qof iyo bulsho ahaanba way suugaantu aad bay u kabaysaa ugu dambeyntii waxaan noo sheegtaa bal imka hadda waxaad tahay waxaad ku jirtaa bahda wax qortay eray ururinta samaysay luqadda Soomaaliga hadday noqoto maansooyin hadday noqoto buugaag aad ka qorto afka Soomaaliga hamigaaga yacni ahaan adiga abwaan xays ahaan halkeed rabtaa inaad ka gaadho qoraalka hadday noqoto suugaanta wax laga qorayo afka Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliga iyo waliba suugaanta Soomaaliga boos intee leeg baad rabtaa inaad ka gaarsiiso adiga fikir ahaantaada horta aad u maasantahay kulli intii ilaahay uu naga gaarsiiyay baynu ka gaarina haddii ilaahay raado laakiin si guud wuxuunbaa aniga hamiyaanteeda ah in afkeenaasi mawduucyada badan ee diini aanan maaragtay wax laga qorin inaynu wax ku qorno haddii aynu wax darsaynana isaga aynu ku darisno waayo cid aynu dhibkeeda xalinaynay waa bulshada afkan iska leh kan un baynaa badankaygu taqaanaa marka inuu afkeena si afafka ummadaha soo gaaro meelo badan oo wax laga darsay ama wax laga qoray afafka kalluunkeena laga qorin oo jirana insha Allah wixii karaankayga gaar ahaan dhinaca maaragtay suugaanta iyo luqadda inaan maaragtay aan wixii doorkayga meelo badan oo diinina insha Allah ka qoro wax badan oo ka qorayna way jiraan marka dhinaca cilmi baaris ahaan iyo dhinaca maaragtay mawduuc ahaanba inaan labadaas si fiican xoog uga saaro wixii qoraal tamarteeda aan meelo badan oo diin insha Allah taabtan rajaynaya hadii la yiraahdo insha Allah taala waxayso luqadeena Soomaaligaana marka si loo eego qolkiiba 70 waxa la yiraahdaa waxa ku jira luqado badan oo qalaad habow bata Carabigu marka waxa jira eray bixinno ma ku sameeysan waliba macadkiina macadka afka Soomaaliga waliba suugaanta eray bixin waxyaabaha soo baxay tusaalahan caalamka wadamada Carabta kala adeegtid shirkado markay soo saaraan qalabka isla markaaba eray bixin baa loo helaa luqadeena Soomaaliga dadku waxay ku isticmaalaan luqad waxa uu ku soo baxay Carabiga soo baxay iyo Ingiriis ku soo baxay fikir intelleg ama intelleg baad ku baraarugsan tihiin macad ahaan in eray bixin loo sameeyo afka Soomaaliga waa arrin muhiim oo u baahan in la qabto kulley in la sameeyay caqabad ugu weyn ma laakiin waxaan caqabada ugu weyn u arkaa wixii markuu soo kordho in bulshadii la gaarsiiyo ama meel cid fulisa oo gaar ah oo xil saaran oo miisaaniyad leh oo maaragtay riya soo baxay ereygi inuu waxa uu noqdo dee wasaaradda ama dawlad xoog leh badan fulin karta waxa uu qof qorqoray kulley intii aragtay un baa arki kartay laakiin wax sidaas ku hirgala inuu hirgala waxay ku xiran tahay mas'uuliyad dawladeed sanaamisana kulley waxyaabo badan oo laga qorqoray way jiraan af Soomaaliga kulley luqado wax way kala diinsadaan haduu ereygu salahan imika ereyada Carabiga ah oo kale in lama oran karo af Soomaalina ma su'aal imika diirada khayr oo kale af Carabi ha ahaado Soomaalina ay khayrun aan ka simanahay hadaan doonaan ka soo diinsadabe marka wixii ereyga in la yiraahdo kan afka ma ayna ka saar automatically mana sax ma luqado wax way kala qaataan waxay qaataan qaar hadaad sidoo la qaadatay waad la wadaagtaa oo sida un baad ku hirgelin kii kale laakiin u dhigankiisa aad leedahay muhiimadda waxa weeye in xoog la saaro
erey ka dhibaatada meesha ka jirta erey aan baahiba kuu geynin inaad isticmaasho adoo ereygiisii u dhiganka ahaa adigoo haysta marka kaaga inaad marka hore isticmaasho kadib haddii aad u weydo la wadaagba marka waxyaaba way jiraan ereybixino lasa sameeyey sidoo kale xafiiska dhaqanka dalxiiska oo kale ereybixin u sameeyey way jiraan laakiin in bulshada la gaadhsiiyo weli tallaabadeedii ma muuqato laakiin in wax dadaaladaas iyo dareenkaas ugu jiraa waa laga qorqoray waxyaaba badan annaguna qayb waan ka ahayn ereybixinada la sameynay si fiican waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena barnaamijka maanta waxaa marti inoogu ahaa abwaan xays oo ah bare jaamacadeed isla markaana ah dadka afka Soomaaliga wax ka qora tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaanu idinku dhaafaynaa aniga iyo bahda Shakaal sidaas iyo nabadgelyo